تودبو gabadhan idin muuqato waa Rabia Ruga waa gabar Jarmalad ah 29 sano jir ah Berlin ka soo jeeda gabadhan xirfadeeda waxa lagu sheegay inay tahay injineerad dhinaca korontada gabadhan waxay sameysay inay u dalxiis tagto ama inay safar u aado adduunkan banaankiisa okay ana waxaan arkay in safar loo tagayo wadanka wadanya laakiin ayada adduunkan ay ka tagtay waxay sameysay safar loo tagayo planet to another planet ama kawkab min kawkab kale okay gabadhan waa gabadhii ugu horeysay horteeda waxa ka horeeyay 12 nin ayada waxay ku noqotay tii 23aad laakiin gabar ah su'aasheedu waxay tahay marka aaway gabadheena Soomaaliyeed oo 29 jirka ah okay ilmay la dhibaatoonaysa oo ninkii ku dayacay TikTok-gaasi dhex fadhisaa live ay ku jirtaa qabiilay kaga sheekaysaa iyo kaniisad iyo balaayo kale TikTok-gaasi ku jirtaa jirkeeda ku iibisaa kuwa qaarna ayagoo waxbarashadii rabo ayaa waalidkiiba hor taagan wuxuu taagan yahay gawar waxbarashadeeda darsaanka ma dhaafto gawar wax mal baro gawar waxbarashadeeda guur la waay guur jikada hala baro okay adduunkan maanta wuxuu maraa gabdhihii inay noqdaan gabdhaha ugu tartanka badan inay adduunkan wax ku soo kordhiyaan gabdhaheena qaar way fiican yihiin wax waa barteen adduunkan wax u tareen okay sida Hawa Taako okay Hawa Abdi because that magac la way jiraan laakiin badankooda TikTok-gaasi dhibaato ku hayaan oo jirkooda ku iibiyaan kuwa qaarna live ku jiraan 24 saac kuwa qaarna ilmo oo yaraan ay ku dhaleen ay mas'uuliyadooda qaadi karin la dhibaatoodaan oo ninkii ka dhalayna uu meesha ka deeriyay ama ku cidleeyay almuhim waxaan leeyahay fikradeedu waxay tahay marka am ujeedkaygu wuxuu yahay gabdhaha wax la baro project gabdhaha wax lagu baraay hala sameeyo okay gabdhihii in wax la bara ayaa fiican dhaqankeena Soomaaliyeed wuxuu yaqaanaa gabar wax lama barato ama gabar wax lama baro laakiin gabar wax baratay waa bulsho wax baratay hadii hooyada wax taqaano okay qoyskaas wuxuu noqonayaa hooyo qoys aqoon-yahan ah wax yaqaano almuhim talada aan soo jeedinayo waxay tahay in gabdhaha wax la baro commentigana waxaan idin ku codsanaa gabdhaha wax la baro ilaan ka dhigno